tobankii Sebtembar waxaa laga joojiyay madaxweynihii hore dalka Shariif Sheekh Axmed inuu aado magaalada Kismaayo. warka waxaan ku helay inuu madaxweynaha hadda Farmaajo uu amarka soo bixiyay. waxaan jeclaan lahay wasiirku inuu noo sheego amarka cidda soo bixisay. su-aasha labaad mudane gudoomiye sidoo kale 10kii November wafdi uu hogaaminayaan labada madaxweyne iyo xildhibaanada labada gole oo rabay inay mucaawino geeyaan magaalada Beledweyne ayaa laga joojiyay airportka si ay u aadaan Beledweyne. waxaan warku nagu soo gaaray ra'iisul wasaaruhu ka joojiyay oo waxaan rabnaa inuu wasiirku noo sheego cidda amarkaas siisay. waa 22 bisha September ayay ahayd xilliga diyaarad uu madaxweynaheeni hore madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu saaran yahay uu qabtay diyaaradda waxaa qabtay sharci ay soo saartay hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed. sida la socotiin diyaaradaha nootamka la soo saaro wuxuu qabtaa diyaaradda dhulka taagan xilligaas. xilliga diyaaradda nootamka uu soo baxay diyaarad dhulka taagneed ma jirin sida nagu maqaalo ah madaxweynaheeni hore ma uusan joogin wasaarad ahaan dawlad ahaan xukuumad ahaan wax dhibaato ah oo ku qabna madaxweynaheeni hore inuu si xur ah u safro meeshuu rabana tago. annaga sharaf noogu jirta inaan soo dhaweyno markuu yimaado airportka meeshu u socdana aan u sahalno. marka runtii ma jirin wax madaxweynaheeni hore innaga shakhsiyan aan u geysanay ma jirin. wasiir xuduudaha dalka birri iyo bad iyo cirwa hadday birrigii furan yahay oo aad waxba kontrooli karin oo xuduudda Kenya ay ka soo galayaan baabuurtii oo baddii ay furan tahay xuduudda aad qofka Doobley ka soo safraya aad leedahay xamar ku imow oo aad ku dhibaysid ama qofka meel kale ka imaanaya dhibaatadaas baa loo geysanayaa maahan xuduud ku xiran ma jirto wasiir. annagana dad waaweyn baan nahay lama camayn karo wax kasta oo dhaca hay'adda dawladda iyo wasaaradda gaadiidka waxay aaminsan tahay inay xildhibaanada lug ku leeyihiin. waay xildhibaanadu muddo 2 sano iyo bara waxay la fadhiyaan sharcigii maantana kala saari lahaa ilaa hadda in la meel mariyo la diidan yahay. diyuurada la xanibay xuquuq muwaadiniina lagu tuntay corona sida noqday corona la xiray ummada cunaqabatayn la saaray dhammaan sharciga hay'adda dawladda ayaa kala saari lahaa. lacagta hadda dadka laga qaado gudaha iyo dibadda tiradeeda inta ay tahay waa la ognahay. yaa jaangooyay lacagtaas goormaase la jaangooyay mise wasaaradda ayaa tariifo ku soo saartay. waxaan rabaa lacagtaas in la hubiyo sharciyadeeda. waxaan ka hadlayaa waxaa waaye sharciyadeeda waaye. waxaan rabaa inaan ogaado goorta la jaangooyey iyo cidda jaangooysay iyo in ay wasaaradda tariifo ku soo saartay inaan ogaado. arrintaas waxaa go'aankeeda saxiix anaga waa naga horreeyay dawladdu naga horreysay anaga heshiiska gashay ayagana saxiixeen. sidoo kale lacagaha waxaa jaangooyo taliyihii jooga halkan saxiixay contractigaas company contract yaasiina su'aashiisay hoostaala su'aashaada labaad ay ahayd. lacagaha fiisaha waxaa jaangooya wasaaradda maaliyadda idaa lagala xiriiraya laakiin halanka cudur daarna ma jiro muwaadin Soomaaliyeed oo la ganaaxo ma jiro. muwaadinku markuu soo galo ee $60 iska bixiyo hadduu 20 sano joogo markuu baxayo ganaax ma leh wax lagu ganaaxiyo wax laga qaado ma jiraan. maxaa hortaagan inaad keento golahan sharci maaragtay ka tarjumaya nidaamka federaalka oo muxuu ahayd ciidankii heer federaal heer maamul goboleed kala qeexaya inaad keento arrintaas wasiir maxay u qabsoomi laada heerka ama sharciga federaalka lagu dhaqi lahay booliiska federaalka maxaa haysto biidnillah kariim uu soo socdaa oo keeni doonaa laakiin xildhibaan adiga iyo xildhibaanada kale waxaan codsanaa sharciga marka halka la keeno inuu socdo. waxaan ogtihiin 2017 laba sano iyo xoogaa sano ka hor inaan halkan keenay sharciga dagaalanka argagixisada iyo sharciga xakameynta hubka halkan uu iska sida baarlamaanka sagaalaadna waa la keenay. marka waxaan jeclaan lahaa sharciga haddaan la meel mar wax macno ma dhalays inaan anaga keeno. waxaan rabnaa marka wasaaradda arrimaha gudaha gobolada iyo amniga shaqadooda inay qabsadaan oo wasaaraddana waxaan faraynaa iyadana
in si joogto ah ula shaqaysaan guddiyada taas waxay sahlaysaa wixii qaldanna inay la toosiyo wixii saxanna la sheego khaasatan annaga waxaan ka mas'uulnahay dhinaca sharciyada aad iyo aad u